Shiishahanada tooganaya geela ku nool dalka Australia ayaa la filayaa inay dilaan 10,000 oo neef iyada oo maanta la bilaabayo dabargoynta geelaasi. dadka laynaya ayaa lacag ku qaadanaya dilkooda waxaana ay kala lacag badan yihiin hadba tirada geela ay laayaan. dabargoynta geela ku nool dalka Australia ayay dawladdu ku sababaysay si ay uga hortagaan biyaha xad dhaafka ay cabayaan xilli dalkaasi uu dabqabsaday kaymaha koonfureed ee ku yaala dalka Australia. afayeen u hadlay waaxda cimilada iyo biyaha ee koonfurta dalka Australia ayaa sheegay in tirada geela ay sii kordhaysa ay dhibaatooyin dhowr ah u geysteen gobolka. geela ku nool dalka Australia waxaa laga keenay Hindiya iyo Afghanistan qarnigii 19aad waxaana loo isticmaali jiray gaadiid ahaan. boqolkiiba 90 geela ku nool dalka Australia ayaa ah duurjoog inkastoo dawladdu ay ogoshahay dhaqashada geela haddana waxay xilligan u tafaxaydatay sidii ay u soo afjari lahayd ama ay uga dabargoyn lahayd guud ahaan dalka Australia. Cabdiqani Boos, SBC.